weerarkan oo ku bilowday qarax ayaa waxaa casar gaabadkii galabta lagu qaaday hoteelada ku teedsan xeebta Liida ee magaalada Muqdisho. Hoteelka Elite ayaa weeraryahanada si toos ah u beegsadeen iyadoo markii dambe ay u suura gashay inay gudaha u galaan. Xaaladda ayaa mar qura isku bedeshay mid aad u cakiran oo ciidamada dawladda isku dayeen in ay si fudud u soo afjaraan weerarka, balse ay ku adkaatay maadaama raggii hubeysnaa qolalka hoteelada ay gudaha u galeen. Khasaaraha ayaa wali cadeen maadaama ay tahay xilli habeen ah, xaaladana ay tahay mid cakiran. Saraakiisha ciidamada dawladda ayaa Shabeelle la hadlay waxay u sheegeen in dableyda weerarka qaaday ay tiro ahaan gaarayeen ilaa 6 qof, balse iminka gudaha ay ku jiraan 2 ka mid ah raggaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa waxyeello ka soo gaartay weerarka, balse wali aysan cadeen tirada rasmiga ah ee waxyeelowday. Agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Cabdi ayaa ka mid ahaa dadka galabta halka ku geeriyooday. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah sawirqaado ka tirsan telefishinka qaranka iyo waliba fanaanad Faiza oo ka tirsan kooxda Heegan. Shabaab ayaa loogu bartay inay geystaan weerarada noocan oo kala balse muddooyinkii dambe ay yarayd in hotel ama xarun dawladeed ay gudaha u galaan. Cali Cumar Cabdalla, Shabeelle TV, Muqdisho.